xildhibaan aadan barre ducaale oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya isla markaasina la hadlay BBC-da ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in mas'uuliyiinta Soomaaliya ay u midoobaan sidii dalkooda ay uga saari lahaayeen jahwareerka iyo isjiidka siyaasadeed ee weli ka dhex taagan. Sidoo kale xildhibaan aadan barre ayaa sheegay in nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliya ka dhacda ay dan ugu jirto dhammaan dadka Geeska Afrika ku dhaqan. waxa uu hadalkiisa raaciyay inuu aad uga xun yahay khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. aadan barre ayaa waxa uu madaxda dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ka dalbaday inay u dhimriyaan shacabka Soomaaliyeed isagoona kula taliyay inay heshiiyaan. hadalkiisa ayaa waxa uu ku soo beegmaya xildhibaanku xilli qaybsanaan baahsani ay u dhaxayso madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe kuwaasoo bilihii u dambeeyay hawada isu marinayay hadallo aad u adag isla markaasina xiriirkoodu uu ahaa midaan wanaagsanayn.